Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka laga muuqaal cusub, muuqaalkan waxa uu ku saabsan yahay qaabka loola soo dego icons. Icons waxa weeyaan waxyaabaha loo isticmaalo Photoshop-yada ama markaasi video editing loo isticmaalo. Hadda halkan shaashada waxaa kaaga muuqda applicationo Pixel Lab, KineMaster, Snapseed, Canva, PixArt, Lightroom, GB, WhatsApp Plus, waxyaabahaas oo dhan baa kaaga muuqda. Haddaba marka aad application kamid applicationadan aad muuqaal ka diyaarinayso ama sawir ka diyaarinayso, waxa aad u baahanaysaa sawirka yar uu applicationku leeyahay keligii baad u baahanaysaa. Iconska kuwaas la yiraahdaa. Sidoo kale waxa la yiraahdaa PNG maadaama aysan wax background lahayn oo iyagu kaliya ay yihiin. Haddaba muuqaalkan waxaan ku baran doonaa qaabka loola soo dego icons. Iconska inta ugu faraha badan waxaa loo adeegsadaa Photoshopka, video editorka, waxyaabahaas oo dhan baa loo adeegsadaa. Website caan ah jira markaa oo iconska lagala soo dego iyagoo markaasi icons khaliyata icons kaliya iyagoo ah oo markaa ay color kaliya yihiin oo ayna ahayn markaasi qaab midabaysan. Bal hadda aan eegno website-ka markaas ugu caansan ee iconska lagala soo dego. Hadda icon caadi haddii aad u baahan tahay oo magaciisa garanayso halkan Google-ha caadiga ah ayaad ku qori kartaa. Haddii aan u baahanahay YouTube icon baan haddan doona halkan ku qorayaa. YouTube icon baan halkan ku qorayaa. YouTube icon PNG man halkan saa ugu qorayaa kaliya search ma siinaya qaybta photos kan ku dhuufanayaa markaasi automatically ay qaybtan uga soo baxaya iyagoo markaasi iconki YouTube ku lahaa waa kan sawirka YouTube-ka dul saaran ayaad halkan kala soo degaysaa. Sidoo kale website-yada jira gaar ah oo markaasi sawirada noocan lagala soo dego xagana iyagana sidoo kale ka eegi kartaa oo markaasi ka dheehan kartaa. Markaasi iconka aad rabto umad magaciisa halkan ku qoraysa isaga markaa ku soo saaraya. Imika haddii aan halkan ku qoro flag calan haddii aan markaa halkan ku qoro just waka way soo saaraya si fudud waliba ayna markaasi u la degi karaa oo markaasi qaybtan odiga arkay isagoo PNG wax background ma laha meesha aad rabto markaa u adeegsan doontaa. Haddaba waxaan eegnaa website-ka ugu caansan ee lagala soo dego iconska. Halkan waxaan ku qori doonaa the noun project odiga arkaya intaas maad ku qori doontaa. The noun project khaliya ayaad ku qori kartaa. The noun project khaliya linkigan ama website-kan linkigiisana qaybta hoose description-ka kugu reebi doona halkaas aad ka geli doontaa. Marka hadda haddii aan search idhaahdo saa ugu dul dhufto waxa markaasi ku soo baxaysa qaybta hore uu leeyahay website-kani wadiga arkaya icons for everything iconka noocyada walba isticmaali kartaa over 2 million curated icons created by global community wadiga arkaya 2 million wax ka badan oo icons ayaa ku jira markaasi website-kan. Iconskuna waa noocan markaa kuwa ku jira meesho waana free weeyaan markaa wax ma laha copyright iconka aad rabto ayaad raadinaysaa kadibna waad download garaysanaysaa just kaliya ta download ba ku dhufan doontaa. Qaybta hadda marka eegto wadiga arkaya qaybta recommendation-ka language haduu ku qoro kuwaas oo dhan ba ku soo baxaya icon walba oo language-ka ka turjumaya. Haddii aan halkan ku qoro qaybtan marka waxaan ku qorayaa mobile baan ku qorayaa kadibna search baan odhanayaa. Marka waxa ku soo saaraya icon walba oo mobilka ku saabsan ayuu ku soo saaraya. Wadi arkay 64340 icon baa ku jira 1160 waa collection oo isku xiran yihiin. Mobilna nooc walba ayaa ku soo baxaya oo mobilku leeyahay nooc walba oo mobilku leeyahay ayaa halkan kaaga soo baxaya ama qaab walba oo aad mobilka u rabto ayaa halkan kaaga soo baxaya. Ka jeceshahay marka halkan ku qori doontaa. Haddii aan halkan ku qoro computer haddii aan ku qoro kadibna search idhaahdo waxa uu soo saaraya markaa icon walba oo ku saabsan qaybta computerka wadiga arkaya computer buu soo saaraya bas just wax kaliya ma soo saarayo waa computerun waxa uu soo saaraya wax computer ku saabsan weeyaan. Iconka ayn sanad ugu dul dhufan kartaa just markaa saa ugu dul dhufato share baad markaa qaybtan aad ku dul dhufan doontaa. qaybtan aad ku dul dhufato meesha aad rabtad markaasi ku share garanaysaa kadibna halkaas aad markaasi kala degi kartaa.
sidoo kale waxa aad samayn kartaa markaa in sawirka intaad saa ugu dul xajiso kadibna download image aad tiraahdo si automatically markaa kugu download sawirkii oo PNG markaa wadiga arkaya hadda waa madowkani wadiga arkaya wax background ma laha qaabkaas markaa ula degi kartaa waa easy weeyaan waxa markaasi masiyaadka kaliya halkan aad ku qoraysaa computer iyo mobile labadaba aad ka isticmaali kartaa search marka soo galaysaa marka halkan waxaad ku qori kartaa icon-ka aad rabto nooc doono ma ahaado over 2 million baa ku jira meeshan marka icon-ka aad rabto ku qoraysaa hadda haddii aan ku qoro brush haddii aan hadda halkan ku qoro oo aan search nidhaahdo waxa uu soo saaraya icon walba oo brush ku saabsan 9343 icon baa ku jira 206 waa collection oo isku xidhan yihiin wadiga arkaya waa brush kaliya tugu soo saaray wax kasta oo brush ku saabsan ay nooc aad rabto oo brush ayuu halkan kaaga soo saaraya oo aad adeegsan kartaa markaa sawirkaaga ama video editing-kaaga ama nooca walba markaasi design oo aad sameynayso ayaad u adeegsan kartaa qaybtan baa soo gali searching baad odhan doontaa icon-ka aad rabtaa ku soo bixi doona just kaliya waad download gareyn doontaa markaa qaybtan waxaad ku dulfan doontaa download image si automatically ayuu markaa kugu download gareysmaya kalaradu waa wada madow balse laakiin marka aad geliso software-ka aad ku shaqeynayso kalarka waad ka bedeli kartaa qaabo fara badan oo looga bedelaa jira haddii aad computer isticmaalayso iyo haddii aad mobile labadaba isticmaalayso waad ka bedeli kartaa kalarka waxba dhibaato ma laha balse laakiin halkan aad kala degi kartaa icon walba oo aad rabto markaasi kaliya browser-ka aad rabto soo kiciso waxaad ku qori kartaa thenownproject.com icon-ka aad rabtaad markaasi adeegsan doontaa sidoo kale qaybtan search bar-ka caadiga Google-kana waxaad ku qori kartaa iconada nooca aad doonayso iyaga laftooda waad ka heli kartaa website fara badan oo soo galiyana waad ka heli kartaa balse laakiin website-kaasi waa website-ka ugu caansan ee markaasi graphic designers-ku ay isticmaalaan marka iyo editors-ku ay isticmaalaan inta badan ay ka download iconadooda halkan haddii aad imika ku qorto icon ama PNG aad rabto inaad la soo degto just kaliya xagan ku qori doontaa uu ku dulgeynaysa automatically aad la soo degi doontaa markaa just kaliya waxa soo furan doontaa browser-ka kugu jira waxaana dooran doontaa marka waxa aad raadinayso hadda haddii aan ku qoro Facebook hadda haddii aan halkan ku qoro Facebook PNG aan ku qoro si automatically uu igu soo saaraya loogadii PNG-ga uu lahaa wadiga arkaya loogada aad rabto ama markaasi icon-ka aad rabto ayada qayb halkan kala soo degi kartaa sidoo kale website-kana waad ka raadin kartaa markaasi iyagoo markaasi bilaa color oo kaliya markaasi la brush gareeyay ayaad kala soo degaysaa qaybtana halkan waxaad ka raadin kartaa iconada nooc walba oo rabto iyagoo kalaraysan oo markaasi aad iyo aad u qurux badan waxaan jeclahay inaad muuqaalkan ka faa'iidaysatay haddii aad ka heshay muuqaalka like saar si uu markaasi dad fara badan u sii gaadho aad iyo aad baad mahadsantahay tan iyo muuqaalka dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh